wuxuu soo dhigaya waxaan optionisa waa visible part of the page wuxuu ku oranayaa ma qaybta waxaan kuu sawiraa muuqata ee page-ka waxaan kuu sawiraa fragment gaara waxaan kuu sawiraa selected area intaad nimka taa doorato ayaad in gaara select gareyn kartaa tani waa select saa u soo select garee scroll hoosna u soco tani waa entire page gibigiisa inaad ahay ad sawirato kusoo dhawaada muuqaal cusub maanta waxaanu qaadan doonaa Chrome extensions muhiim ah oo qof walba saacidaya oo shaqadaadana kuu fududeyn doona waxyaabo fara badan ka caawin doona marka haddii aan Chrome tago waxyaabaha aynu qaadanayno waxa kamid ah haddii aad halka ku arkayso Nimbus iyo text font finder iyo Colorzilla marka saddexdan extension waxay yihiin mid screenshot ka website-yada kaga qaadanaysa mid text-ka website-yada haddii aad u baahato farta nooca ay tahay ayaad ku baadhi kartaa midna color-ka aad meel ku aragto ayaad ku koobiyeysan kartaa marka haddii aan screenshot-ka ku horeyno haddii aan imika tago halkan Google aan tago aan kadib Google fonts halka ku qoro enter aan idhaahdo kadib website-kaan dhex galo waxaad arkaysaa halkan baan doonayaa imika inaan screenshot ka qaado kadib Nimbus baan tegayaa click baan leeyahay click markaan idhaahdo wuxuu soo dhigaya waxaan optionisa waa visible part of the page wuxuu ku oranayaa ma qaybta waxaan kuu sawiraa muuqata ee page-ka waxaan kuu sawiraa fragment gaara waxaan kuu sawiraa selected area intaad nimka taa doorato ayaad in gaara select gareyn kartaa tani waa select saa u soo select garee scroll hoosna u soco tani waa entire page gibigiisa inaad ahay ad sawirato marka badanka waxaad ayaad isticmaali kartaa waxa weeyaan selected area marka waxaan samaynayaa imika inaan halkaa ka soo bilaabo haddii aad arkayso marka cursor-kayga afkiisa taaris bilaabaya saasaan leeyahay imika intaasoo dhan haddii aan sii daayo oon halkaa yar ay ku qoran tahay tick saaro wixii geenaya page kale ama uu save gareynaya waan save gareysan karaa imika screenshot-kii taa waxay noogu xiga waxa weeyaan screenshot-ka markaad ka timaado haddii aad halkan tagto waan halkaa imika ku qoro blogger aan enter idhaahdo kadib aan website-kan dhex galo ama website-ka doonta haddii aad dhex gasho imika farta halkaa ku taala ayaan doonayaa noocay tahay inaan ogaado si aan aniguna u isticmaalo marka waxaan tegayaa font finder markaan tago kadib ayar baan soo dultegayaa markuu square-ka saaro farta ayaan click leeyahay wuxuu i siinayaa information-ka oo dhan color-keedu i siinayaa background color-keedaan helayaa wuxuu i siinayaa kale font family-geeda waa roboto oo sans serif ah markaas wuxuu ku oranayaa font being rendered marka roboto weeyaan fartani qaabkaasuu kuu siinayaa fartii waxay noogu xigto oo kale tan Colorzilla weeyaan marka tan coloriska ayaad ku qaadanaysaa imika haddii aan click idhaahdo aan halkan tago halkaa sare waxaad ka arkaysaa hadba colorka maraya halkaa haddii aad arkayso waxaad arkaysaa hadba colorka aan dul maraya tusa imika haddii aan kaa blue baan dul maraya blue khafiifa haddana dameeri haddana caddaan haddana orange baad arkaysaa marka haddii aan imika halkaasoo kale imika haddii aan click idhaahdo waxay siinaya hexadecimalka haddaad arkayso uu ii koobiyey colorka ii koobiyey marka colorkiisa aan la soo baxayaa waxaan tegaya iyadan dul tegaya click baan leeyahay kadib waxaan leeyahay color picker ayaan click leeyahay kadib halkan baad ku arkaysaa colorkii laga qaaday waa kan halkan baan kala degayaa isagoo lambar ah korkiisu yahay hexadecimal kadib okay baan leeyahay ayar baan hadhow colorkii isticmaali karaa marka saddexda extension baan doonaa maanta inaan qaadano haddaba waxaa inoo hadhay imika saan ugu soo darsanaya Chrome waxaad tegaysaa taab cusub kadib halka waxaad ku qortaa Chrome web store kadib click dheh markaad click tiraahdo halkan click dheh markaad tiraahdo wuxuu ku geynayaa web store-ka extensions-ka lagala soo dego Chrome-ta marka halkaas waxaan ku qorayaa imika kale Nimbus kadib enter baan leeyahay wuxuu ii soo saari doonaa oo kaas haddii aad arkayso Nimbus screenshot and screen record video marka badanka kan waxaa loo isticmaalayaa markaad Chrome ku dhex jirto kale ayuu ku shaqeynaya marka saa soo furto halkaas imika inuu igu jira wuxuu ii soo dhigay remove from Chrome marka adiga wuxuu ku soo dhigi doonaa ad baad leedahay marka uu ku shaqeynaya haddii aan ugu tuso ku kale si aad u fahanto waan imika kanoo kala doorto art Chrome bii soo saaray kadib waxaan dooranayaa art Chrome checking buu sameynaya kadib art extension baan leeyahay marka wuxuu ii soo dejinaya extension-ka haddii aan imika halkan tago oo halkaa iga soo dejinaya haddii aad arkayso wuu ii socdaa marka waxaan samaynayaa inaan cancel iska idhaahdo uma baahni
close baan leeyahay kadib saasaad usoo gashanaysaa Chrome-taada. waxaa kalood ku baari kartaa Colorzilla haddii aad click tiraahdo iyaduna waa tan oo Colorzilla. halkan haddana waxaad ku qoranaysaa font finder. markaa qof graphic designer iyo qof kaleba way caawinaysaa oo computerkaaga si fiican kugu shaqaysiinaysaa wataa iyadoo halkaas aad degaysaa. waxaa kaloon doonaya inaan ku tuso another way aad u qaadi karta screenshot. waxa weeyaan computerkaaga oo aadan waxba extension la soo degin ayaad qaadi kartaa. waxaad isla taabanaysaa shifty windowska calaamadiisa iyo s baad isla taabanaysaa wuxuu ku siinayaa wax muxuu ahayey menuga. markaa taa koonahan doortay kadib ayr baan saaleeya screenshot bii qaadaya. markaa halkan buu soo gelinaya haddii aad arkayso haddii aan click qaado haddana waxay siinaya inaan edit garayn karo sawirkii aan qaatay. haddii aan iska soo xidho qaabkaas screenshot kale aad u qaadi kartaa. maanta waxaan qaadanaynay extensioniskaas. aad iyo aad baa umahadsantay. fadlan haddii aad cashirka heshay like noo saar, sii share garo asxaabtaada la wadaag. haddii aad nagu cusub tahay subscribe noo saar, cifaaleed qabtana commentiga hoose noogu reeb. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.